waxaan ka fakarayaa buu yiri inaan business furto iyo inaan masjid dhisto masjid dhista ma ahane moogta masjid dhisto waa masjid business ah waxaaba marka hadda mushkilo ahba dadkii wadaadada ah in kamidaba in masaajidiiba business laga dhigay magaran oo dadkii dhaqaale ay saraalli ka ahayn wax loogu qabanayna aanay jirin waa shay aad xaraam oo xagga sharciga hadii la eego shay hadaad qaado waxaad u qaado waa inaad ku bixisaa hadii kale qoladii inta dadka wax weydiisan nabigu uu lahaa waxay cunahayaan waa xaraam suxtun yaakuluha suxtan ma noqonaysa waa xaraam ayadoo xaraan qofku uu cunayo shay hadaad qaado oo wajigaad u qaado waji aan ahayn aad ku bixiso waad ku dambaabaysaa magaran marka hadii maanta shacabku ay ku arkayaan adoo diin sheeganaya inaad xoolo noocaas intaad aruuriso guriga ku dhisato oo ku ganacsato ma garatay baawul qaaliya ku gadato walaadkii wax u sheegaya aad tahay maxay ku qaadanayaan marka maxay diinta ka aaminayaan وأبي حتى قلوينك أهل كتابك يكون عنه إلهي ولها يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله ذات كان المؤمنين تاي إن بدن وقلوينك أهل كتابك علماء دودي إيه بادريا شودي ذات كهنتي دودي ويبادل قعنها يام ويسدون عن سبيل الله ذات كي وضدي والأكثرين ويكلحين هاي oo wadaadka xaraan cunahaya oo ummadii dhamaa ay arkahayaan dadka madiin buu soo jiidaya marka diinta asaga cilin weyday ayaga ma anfacaysa warku u sheegayo lisaanul haal aqna amma qaarin way bal waxyaalahaas waxay kamid tahay waa waxyaalaha ilhaadka dariyay kamid tahay oo dadku markay ka amaana baxaan ninkii wadaadka ahay hortaagnaa oo ay leeyihiin maalin walba lacagtaan lagu qaadayo ilhaaha oo asagii ka muuqanayso hantida ku samaysanayo una yahay qofkii masjidka u dhisay ama maraakiis baa idin sabay u aaminayaan marka aamin mahayaan bal dadku diinta inay ka cararaan ayadoo waliba ay dheer tahay gaalaysiintiina in la wado waa mushkilo kale takfiirkii baa wali la wada laga hadli maayo marna laga ilbixi maayo